madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi intii uu ku guda jiray socdaalka uu ku yimid degmada Ceelaf Weyne galbeedka gobolka Sanaag wuxuu kormeer indhaindhaynaha ku tagay habsami u socodka wadada isku xidha magaalooyinka Ceerigaabo iyo Burco oo shaqadeedu si xawli ah haatan uga socoto dhinaca galbeed ee magaalada Ceelaf Weyne wuxuuna madaxweynuhu wareysi ku saabsan sida ay u socoto shaqada wadadu ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdilaahi Abukar Cismaan maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka iyo waliba ku-xigeenka mashruuca wadada Mustafa Qalab tira mashruuca lacag badan baa lagu lahaa lacag 1.8 milyan ah ayaa lagu leeyahay dadkiina shaqadii waan ka joojinay waxaan codsanaynaa insha Allah haddii la ka dhigo miisaaniyadda 2019 dadka in loogu daro waxa weeye waa shaqaalahan waxay shaqeynayaan muddo 4 sanadooda shaqaalahan bayrolka kuma jiraan dhammaantood marka laga reebo 3-4 qof waxay jecel yihiin inay noqdaan shaqaale rasmi ah marka madaxweynaha waxaan rajeynayaa shaqaalahaasi sidii looga dhigi lahaa inagoo itaalkeenana og sanadba 10 amba 20 in lagu daro miisaaniyadda qaranka 50 kilomitir oo paved weeye iyo 8 kilomitir oo final ah finalku macnaheedu waxa weeye waxa la saaraya waa waleeyirada daamurka wixii kale oo shaqo laga qabanayay base-ki iyo sub-base-ki iyo finalki intiiba loo dhameystiray waxaanu jecelahay mashruucan si uu nooga soo gabagaboobo laftiisa inaynu insha Allah miisaaniyadda 2019 kana aad awood badan oo la saarto dalkeena waxa isku xidhnaa 8 degmo markii hore imika waxaanu ku guuleysanay inaynu 2 degmo oo kale isku xidhno degmada Ceergaabo iyo degmada Ceelaf Weyne markaynu insha Allah sanadkan gaarno gar adag iyo Burco waxaynu suurtay gali doonaa 13 degmo doorasho in isku xidhnaadaan waxaana inoo dhinaan doona insha Allah haddii la ka dhigo 10 degmo doorasho tabta iyo talada iyo isduubnida iyo barnaamijkayga waxaanu dooranaa waxaanu ka baranay sanadkii hore inaanu tayadana kor u qaadno farsamadeedana kor u qaadno habka aanu u shaqeynayna maamul ahaan iyo farsamo ahaanba wax weyn ka bedelo oo sanadkan ay noo noqoto base wixii aanu ka baranay aanu isticmaalno oo waji cusub la nimaado waxaanu gacmaha isku qabsanay hadaanu nahay wasiirka iyo maareeyaha iyo ku-xigeenka iyo shaqaalaha iyo madaxda kale sidii aanu horumar badan u gaarsiin lahayn waxaanu dhisnay 850 kilomitir oo 50 kilomitirna aanu daamir saarnay 8 kilomitirna tan imika aynu taaganahay oo kala ah oo noo diyaar tahay inaanu ooliyadii iyo ku shubno waxa weeyaan daamirkii wadada dhismaheeda dhisaynkii loo dhisay ee dawladdii hore u samaysay waxba kama aanan bedelin waxaanu shubnaa ooliyo wax la yiraahdo ooliyada markaanu shubno waxaanu ka sarraysiinaa daamurka haddana waxaanu ka sarraysiinaa jay waaweyn jayga waaweyn waxaanu ka sarraysiinaa daamurka kale waxaanu ka sii sarraysiinaa daamur yaro jay yaro kale waxaanu haysanaa gaadiid 250 ah 250 gaadiid waxa ku jira 9 cagaf baa ku jira inta kale waxa weeyaan baabuurta halka taala oo hubkayga iyo madaafiicdeeda ah waxaanu haysanaa hal karakshar oo yar oo aan ugu filayn waxaanu haysanaa shaqaale 160 qof oo shaqaale ah sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Khaliil waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa ta'aala madaxweyne madaxweyne in ilaahay subxaanahu wa ta'aala xukuumadii kala dambeeyay u dambeysay ay gelisayna ilaahay noo xasiliyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'aala shaqaalaha idman ee dadaalaya iyo xaasiskooda iyo awlaadooda ilaahay inuu barakeeyo تعب كايجلني أنا وحنا نقول بشارين إنه ياهي تعب إلا يوم القيامة أي ما تعرف دونان وايو وصدقة جارية تشتكو وصدقة جارية كمية بركة تشتكن madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa howlwadanada gacanta ku haya dhismaha wadada Ceerigaabo ku bogaadiyay shaqada culus ee u hayaan qaranka Soomaaliland waxaanu hambalyeynaa wasaaradda horumarinta jidadka iyo maareeyaha wadooyinka hawsha fiican ay qabteen waxaanu ka hambalyeynaa hawsha qaranimada guteen iyaga iyo shaqaalahooda injineerhooda iyo dhammaan ciidii wadada ka qayb gashay waxa kale oo aynu tixgelinaynaa cabashooyinkii ay soo jeediyeen ay ka mid tahay shaqaalaha iyo dhaqaalayaridu sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu tilmaamay guulaha Soomaaliland ay ka faa'iiday hirgelinta mashruuca dhismaha wadada gobolada Togdheer iyo Sanaag warta waan ku tababarnay wadadan ilaa Ceergaabo Burco ha dheeraato waan ku aqliyan baan ugu tababarnay maskaxdeena inaan dhisan karno wadooyin dadkana way noo tababartay inaan wax qabsan karno waynu aaminay kharashkeeda inaan samayn karno waynu aaminay sanadba sanadka dambeysana waa araga iyo kalsoonida iyo aqoonta way soo kordhaysaa marka ilaahay idinku waxaan ka rajeynayaa inaanu sanada soo socda halkay 10% ka tahay 20 ilaa 30 gaarsiino waxa leeyahay wixii tamaraheed dawladdu haysana way idin garab galaysaa
dadka shaqaalaha ee waayo aragga ana sidii loo shaqaalaysiin lahaa dhaqaalay ku xidhan tahay markaynu isla eegno wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda hay-adda shaqaalaha haddii alla yidhaahdo wixii suurtagal ka qaaday axmed mursal askari star t v ceelaf weyn